aan akhrinayno kitaabkan iyo kuma taal qof muslim hal dilo dad muslimiin hal laayo kuma taal kitaabadan la usul thalatha kuma taal wala kanaysan ku oolin wala kal shubahat kuma taal dad hal laayo kuma taal muslim dibka jiro fitnada jiro waxaasay ka timid sababay ay uga timid hadaad leedahay shirkiga dadka hal dhaafo waxa keenay waxaan dadkiiba mushrikiin loo aaminay markaas la laayay hadii aad leedahay saas dadka ma aha waxa isdilaayo qaabkaas isku mid dilaan intaan garashada aan leenahay way soo ma fahmin طيب marka yani isdilkuna dadaayana waa ka hadlayo yani kutubtana waxa kale iyadana inaan ka tagin ay tahay dad iyagana waxa jiro kitaabaadkooda iyo qoraaladoodu ay ku caddahay takfiirul mujtamac in la takfiiriyo ku caddahay kitaabooyin oo weliba marka yani culumanimo iyo hadda iyagu iyo qaababkaas iyo taxliilaadkaas waxaan lahayn aadna loogu ta'afuray oo iyo ta'asurkii ka yimid oo ka dhashay waxyaabo badan oo fitan noqon kara ay ka dhasheen jiraan dadkaas ay halkan u saarnaayeen ayaa waxay leeyihiin dhibka wuxuu ka yimid madhabkan salafka oo la sheegayo ama yani itijaahan salafiga ah ama wahaabiyada ayuu ku leeyahay isagana yani waxa uu sheeganayo ama yani xisbiga uu nisba sheeganayo marka la fiiriyo raggiisa waxa laga yaabaa inay ku jiraan daamaad waaweyn oo takfiir mujtamac iyo inay ku jiraan dhici karto markaad tiraahid war miisaan saar labadan madrasadan iyo madrasadan kale miisaan isku saar haddii la dhaho ma ogola kiisa wuxuu rabaa inuu inta saarto kanna uu yidhaa shartoo dhan halkaanay ka timid inuu dhaho marka waxyaabahaasoo dhan marka mufakirna uu isku sheego weliba waa bacdi naas waxaan ka hadlaa aniga oo mufakiriin isku sheego afka markay kala qaadaan waxyaabahan ka hadla kadib maxaa ku xigo sunnada in lala dagaalamo xijaabka lala dagaalamo waxaasoo dhan marka waxaa la gelinaya waxaa laga dhigaa shaqo wahaabiye